kulan wacno wanaagsan daawadayaal waa maalimnimo talaadaha taariikhduna ay ku beegan tahay 27kii bishii 7 2021 wararkeena maanta ee Bonless Media aan idinku haynana waxa kamid ah madaxweynaha Tunisia oo kala diray baarlamaanka dalkiisa qarax la beegsaday ciidamada dawladda ee ka dhacay duleedka Beledweyne ra'iisul wasaare ku-xigeenkii hore ee dalka Kenya Mudavadi oo ku baaqay in aan loo noqon rabshadihii 2007 ee daawadayaal ku soo dhawaada qodobadaas oo faahfaahsan madaxweynaha wadanka Tunisia Kais Saied ayaa kala diray golaha xeerdejinta dalkaasi waxa uu sidoo kale xanibaad saaray howlaha baarlamaankaas ahaatee tilaabadan uu qaday ayaa waxaa dhaliilay siyaasiyiinta mucaaradka oo ku tilmaamay in ay tahay afgambi tani ayaa timid kadib dibadbaxyo waaweyn oo shalay ka dhacay magaalooyin kala duwan oo ay dadweynaha ku dalbanayeen in baarlamaanka la jibeeyo dibadbaxyaasha oo ay ciidamada booliska ku kala eriyeen sunta dadka ka ilmaysa ayaa dalbanayay in xukuumadda wadankaasi ay iscasisho maadaama aynan ku guuleysanin xakameynta faafidda cudurka corona sidoo kalena dhaqaalaha dalkaasi wararka ka imaanaya gobolka Hiiraan ee bartamaha dalka ayaa sheegay in saacadii la soo dhaafay qarax nooca miinada gobolkaasi lagu eegtay ciidamo ka tirsan kuwa xooga dalka Soomaaliyeed xilli ay howlgallo ka wadeen halkaas qarax ayaa waxaa la bartilmaameedsaday ciidamadaasi xilli ay howlgallo qorsheysan ka wadeen inta u dhaxeysa magaalada Beledweyne iyo degmada Maxaas ee gobolkaasi wararka ayaa sheegay in qaraxa uu khasaare kala duwan ka soo gaartay ciidamada dawladda iyo kuwa maleeshiyaadka loo yaqaan macawsleyda ee ka howlgala halkaas ugu yaraan 2 askari oo uu mid kamid ah ka tirsan yahay ciidamada militariga Soomaaliya halka kan kalena uu ka tirsan yahay maleeshiyaadka macawsleyda ayaa ku dhintay qaraxaasi sidoo kale waxaa ku dhaawacmay 3 askari oo ka tirsan ciidamada qaraxa lagu eegtay duleedka magaalada Beledweyne ee xarunta gobolka Hiiraan ilo dadka deegaanka ayaa sidoo kale sheegay in weerarka qaraxa kadib ciidamada ay sameeyeen howlgallo lagu baadigoobayo kooxihii ka dambeeyay falkaasi kadib ciidamada ayaa la sheegay inay isaga soo dhaqaaqeen goobta qaraxa lagu eegtay waxayna dib ugu noqdeen fariisimihii ay markoodii hore ka soo baxeen gobolka Hiiraan ayaa waxaa muddooyinkii la soo dhaafay ka socday dhaqdhaqaaqyo ciidan oo xoog leh kuwaasi oo ay wadeen ciidamada dawladda iyo kuwa AMISOM ee ka howlgala Hiirshabelle ra'iisul wasaare ku-xigeenkii hore ee dalka Kenya Mudavadi oo ku baaqay in aan loo noqon rabshadihii 2007 madaxa xisbiga ANC Musalia Mudavadi ayaa soo jeeday in nabadda lagu dadaalo ka hor doorashada guud ee sanadka 2022 waxa uu ka digay arrin kasta oo wadanka u horseedi karto in dib loogu laabto rabshadihii ka dhacay dhamaadka sanadkii 2007 iyo horaantii sanadkii 2008 ra'iisul wasaare ku-xigeenkii hore ee dalka Kenya ayaa sheegay in aan loo baahnayn in qof Kenyan ah loo dhibaateeyo adeegsiga xuquuqdiisa dimuqraadiyadeed oo ay ka mid tahay in uu doorto hogaamiyaha uu ku qanacsan yahay waxqabadkiisa Mudavadi oo soo gabagabeeyay socdaal 2 cisho ku qaatay oo uu ku joogay ismaamulka Nyeri ayaa dadweynaha ku booriyay in aan lagu kala qaybinin ama aan la isku qabatinin siyaasad qabiil ku salaysan daawadayaal intaas ayaan ku soo gabagabeynaya wararkeena maanta ee Bonless Media wararka waxa idin akhrinay oo idin soo saaray anigoo ah Najiib Cabdullaahi Najiib Akhyaar intaan wararkeena dambe dib ugu kulmi doono waxaan idinkaga tagayaa sidaas iyo fi amaanillah.